الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. الله سبحانه وتعالى كون كان وحو أبوري ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا إن يسقى عابدان وعبادة أوردن أي يسقى ولي مادان شركي يقال لمنا أي كديرادان وعدك له أين اللو ذاتشين cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala uu mutaystay tacaynkaas sidaa xaqiijinteeda la xaqiijiyo laba arrimood oo waaweyn ayaa lagu helayaa. waxaa lagu helayaa alhidaayatu fi ddunyaa, adduunka inta la joogo inuu qofku waddada saxda ah uu maro oo toobiyaha toosan uu qaado, qalqallooca iyo waddada baadida iyo dalaalkana uu ka soo leexdo, aakhirana uu ka badbaado ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa iyo cadhadiisa iyo ciqaabkiisa. ilaahay baa labada arrimood bay noo tilmaamay subxaanahu wa tacaala kamaa qaala fi suurati alancaam: aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun. kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey ee iimaanka laga helay, iimaankoodana dulmi aan ku dhex darin, kuwaa waxa u sugnaaday al-amnu, badbaada u sugnaatay, wa al-amnu fi alaakhirati min alcadaab, wa aakhiro inay cadaabka ka badbaadaan, wahum muhtaduun ay fi ddunyaa, waa qaar hanuunsan oo waddadii saxdaa qaadaya intay adduunka joogaan. bidulmin waxaa loo jeedaa bishirkin, walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ay bishirkin. oo saxaabadu aayaddaasi markay soo degtay waa ay aad iyo aad bay uga murugoodeen, iyagoo nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam: yaa rasuula allah, ayunaa lam yadlim nafsah, ka naga mid ah ee naftiisa aan dulmin waa kee? dulmiga waxay u fahmeen dulmigii aan shirkiga ahayn. deeta wuxuu rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam dulmiga halkan laga hadlaya inuu yahay dulmiga shirkiga iyo gaalnimada ah, oo tawxiidka in laga ilaaliyo, shirki iyo gaalnimo in loo jeedo ayaa nebigu tilmaamay, isagoo ku yidhi: miyaydaan akhrin qowlka allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi markuu ka hadlayay luqmaan alxakiim, inuu yidhi: yaa bunaya laa tushrik billaah ina ashirka la dulmun cadiim. wiilkaygiiyow, ilaahay ha u shirki yeelin, shirkigu waa dulmi aad iyo aad u weynaansho badan, wa acdamu denbin cusiya allaahu bihi subxaanahu wa tacaala, waa dembiga ugu weyn ee ilaahay lagu caasiyo. sida awgeed ayaa waxaa inala gudboon inaynu dadaal ku bixinno barashada tawxiidka iyo xaqiijintiisa, waxyaabaha tawxiidku uu ku dhisan yahay, macnaha tawxiidku uu leeyahay, iyo keliyeynta ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada loo keli yeelayo, laga dheeraado oo laga fogaado tawxiidka lidkiisa oo shirki iyo gaalnimo ah, waqti lagu bixiyo sidii loo baran lahaa tawxiidka lawaasimtiisa oo diinta qaybaheeda kale ay ka mid tahay. taasaa lagu badbaadayaa adduun iyo aakhiro labadaba. wafaqa allahu aljamiica lima yuxibuhu wayardaah. sala allahu calaa muxamedin wacalaa aali muxamed.